Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaal cusub dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Guddoon Garaaf. Wararka naga soo gaaraya dalka Cumaan ayaa sheegaya inuu geeriyooday hogaamiyihii dalkaasi Suldaan Qaamuus. Suldaan Qaamuus waa hogaamiyihii ugu muddada dheeraa ee dalkaasi soo xukuma. Haddaba dalalka Islaamka ayaa ka qaybgalaya aas qaran oo loo sameynaya suldaanka, waxaana ka mid ah dalalka ka qaybgalaya dalka Soomaaliya oo uga qaybgalaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Muuqaalkeena waxaan ku baranaynaa caawa chapterkii saddexaad ama qaybtii saddexaad darsigii saddexaad aan ku baranayno barnaamijka caanka Adobe After Effects. Waxaan wadnay projecti aynu ku diyaarinayno studio background wax la yiraahdo. Maadaama aynu studio background wadnay, waxaan rabnaa inaan samaysano wax professional ah. Sidaa darteed waxaa ujeedaa halkan in ay kala soocan yihiin midabka buluuga iyo qariirada. Waxaan rabnaa inaan isdhexgelino ay wax isku milmay noqdaan. Maadaama aan arrinta rabnaa inaan samayno, waxaan ku khasbanay inaan halkan normal ay ku qoran tahay click aan samayno. U fiirso, normal waxay ku aadan tahay maapka dushiisa, maapka ayay ku aadan tahay. Markaas waxaan dooranaynaa overlay. Sidaa u jeedid hadda waxaa la isku dhexmilay midabkii buluugaha iyo qariirada ayaa isku dhexmilmay. Okay. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan samayno sawirkii halkan imaan lahaa iyo shapeskiisii oo watay iyo meeluhu ka soo baxay inaan samaynaan rabnaa. Marka waxaan tagaynaa kamsashkii aan diyaarsanay casharkii labaad oo sawirka aynu ku qorannay. Ayaan double click siinayna. Double click markaan siino, halkan waxaan soo dhigaynaa sawirka aan rabnaa inuu halkan ka soo baxo. Sawirkan ayaan soo qaadanaa, soo diyaarsanay. Halkan ayaan ku sii deynaynaa. Marka halkan ku sii deyno, waxaa ujeedaa sawirka inuusan meesha la ekin oo ka yar yahay. Si aad u leekaysid calaamadda kombiyuutarka S taabo. S markaa taabatay skill ayaa kuu furmi doonta. Skill markay kuu furanto ayaa waxaa qabanaysaa dhinacan gudaha xiga. Kadibna sawirka ayaa meesha la ekaysiinaysaa. Markaa rabto sawirka inaad meesha la ekaysiiso sawirka meesha ku la ekaado. Okay, sawirka meesha waa noo la egyahay. Hadda waxaan rabnaa inaan u samayno sawirka shapeskii aan ugu talagalay inaan u samaynaan rabnaa. Halkan ayaan tagaynaa option barka ayaan tagaynaa. Option bar markaan tagno rectangle tool ayaan dooranaynaa. Double click haddii aan siino, waxaa lagu siinaa shape la eg shaashadan ku furan. Double click si marka waxaana la siiyay shape la eg meeshii aan u rabnay la eg oo shaashadeeni la eg ayaana la siiyay. Maadaama la siiyay shapekii wuxuu qariyay sawirka aan meesha soo dhigin ayuu qayriyay. Marka shapekan ayaan copy ka sameynaynaa. Control D ayaan computerka taabanaynaa. Control D markaan taabano, kan hoose ayaan dooranaynaa, kan sarena isha ayaan ka xiraynaa. Isha markaan ka xirno, midka hoose ayaan noo dooran oo sawirka ku xiga. Sawirka waa ka hoose. Kan hoose markaan doorano, field ayaan taabanaynaa. Field markaan taabanana waan ka xiraynaa calaamadda field ayaan dhahaynaa. Sidaa u jeed sawirka ayaa soo baxay. Stroke ayaan u furaynaa marka. Stroke markaan u furno, okay ayaan leenahay. Stroke waxaana la siiyay cabir la eg sawirkeena ayaana la siiyay. Cabir sawirkeena la eg ayaana la siiyay. Okay, marka intaas ay sawirkan iyo waxa noogu diyaarsan iyo kofarka uu ku dhex jiro ayaa noogu diyaarsan. Kii sare ayaan u laabanaynaa, kadibna isha ayaan ka qaadaynaa. Isha markaan ka qaadno, waxaan rabnaa sawirkan inuu noqdo albaab oo sawirka iyo shape-ka kale oo kofarka is wata ay ka soo dhex baxayaan. Waxaa xasuusin midan labadan ayaan rabnaa inaan kala magac u kala dulo maadaama shape layer 2 iyo shape layer 1 ay yihiin. 2ga ayaan right click leenahay, kadibna rename ayaan ku sameynaynaa. Waxaan leenahay double soo qoro double ku qoro. kan kale magaciisa u diisa darto dib ma lahan. Maadaama kaas marka double noo dooran yahay, double rabnaa inaan dhaqaajino. Muuqaalkii koowaad waxaan ku soo aragnay calaamadda dhexda taal oo aan idiin sheegnay inaan sharaxi doono. Calaamadda dhexda taal waxaa la dhahaa anchor point. Anchor point yaa rabnaa marka inaan dhaqaajino oo si uu nagu maamulo albaabkeena meesha aan u rabnay inuu albaabkeenu hadhow aado si uu nagu maamulo. Waxaan tagaynaa halkan option barka, waxaan soo dooranaynaa fiiriya falaarta mouse ko xamo wadato, laakiin markaan click siiyo wax ayay soo qaadatay wajida waxbay wadataa. Kan ayaan click siinaynaa, kadibna waxaan qabanaynaa control si aan u maamulo oo meesha rabnaa u geyno. Control markaan waa wadanaa wajida falaarta waxay wada dhag halkaas ku boodaa. Meesha aan ugu talagalay ayuu tagay. Shape-kana marka nayna maamulo. Si aan u maamulo marka waxaan taabanaynaa P computerka oo position ah. P oo position marka taabano first one
stopwatchka ayaan shidaynaa click siinaynaa markaan click stopwatchkan siinay fiiriyaa inta dhibicana loo soo dhigay dhibicdan in yar hore u dhaqaajinaynaa halkaas camal aan geenaynaa marka halkaas camal geeno waxaan sameynaynaa inaa kan dhaqaajina marka xagga u soo wadaynaa xagga oo waxaan soo wadaynaa inagoo shift la qabanayna waxaan shift inuu geesaha ay kaaga dhaqaaqaa la diidaa xagga waxaan soo wadaynaa oo waxaan soo wadaynaa timeline xagga u soo wadaynaa dhanka liftigaana qabanay xagga u soo wadnay marka albaabka waa furnay marka kan wuxuu ka caawinayaa inuu albaabku saas hadhow u furmo halka markuu tago ayaa waxaan haddana isticmaalnaa wax la yiraahdo waxaan isticmaalaynaa skill ayaan taabanaynaa skill aan noo furantay skill marka waa height iyo weight waa balac iyo dhar marka inaan kulli isticmaalo ma rabo waxaan rabaa inaan kor iyo hoos kaliya isticmaalo silsiladaana ka qaadana marka maadaama aan rabo inaan isticmaalo hal dhinac inaan isticmaalo aan rabo silsilada kow markaan ka qaado kadibna stopwatchkan ayaa shidaa dhibica la siiyo ujeedaa soo maha kadibna calaamadan ayaan in yar hore u dhaqaajina intaan geynaa inta markaan geeyo kana isticmaalaa marka kan aan isticmaalaa oo dhankan xaggan oo bidixda aan wadaa dhanka liftiga aan wadaa waa la kaxay soo marti marka inta fiiriya waxa dhacay xogaa degdega jiga marka degdega anaa ku sheegaa wuxuu yahay labadan ay isla doortay hadda labadan sawirkii iyo kof ku dhex jira isla doortay xogaa yaraan kaxeena intaan geena intaan dhexdan geena fiiriya dhexdan geena qaab kale loo xiray waa jiraan isagana waa baran doonaa insha Allah oo loo jaro marka xogaa degdega ku jira marka dhamaantood key frameskaagii ayaa rabtaa hadda inaad saxdid oo aad u samaysay speedka adiga aragtid u ayaa taabanaysaa kulligood u aragtid dhamaantood waa lagu tusay soo maaha maadaama dhamaantood lagu tusay marka inta waay meesha wax laga rabo in laga sameeyo degdega jira degdega xogaa durkina kan xogaa isla dooranay kulligood darsigan intaan oo dhan isla dooran xogaa isla durkina kan muxuu ahaa waa dabool magaca marka sameynayna xogaa yar degdega weli xogaa yar degdega soo kaxee weli soo kaxee kaas anchor pointigi waay moogta xogaa yar degdega ku jira kan meesha isku celi weli degdega ku jira weli labadana soo kaxee aga keen okay way hadda waa fiican yahay maasha Allah way ayar ku dar labadana kala qaadaysid soo kan gooni u kaxeena hadda okay weeyaan marka dhamaantood isla dooranay dhamaantood marka isla dooratay adiga sida doo qaartaa sameysana markaas dhamaantood marka isla dooratina hal xabo kamid ah ayaa right click leedahay key frame assist ayaa taban easy ayaa dahay okay marka waa sameeyna kan maadaama kana sameynay blade okay shaashadan ku laabanayna marka shaashada waa tan shaashada markay tan tahay waxaa keenaynaa conversation sawirka ku soo sameynay ku soo diyaarinay ayaa keenaynaa saa ujeedid inta xogaa kan markaa durkiyo inta geeyo waa kaas saas way kana marka qaadaynaa inta geenayna waxaan haystaa inta geenayna inta marka geeno kana xogaa yareynayna yareynayna cabir macnaha fiican oo qurux badan ayaa ka dhiganaa oo hadhow farteena noo leeg fiirso marka blade wakaas eeg ya dhag weeyaan aad u qurxan yahay saa ayaa loo sameeyaa marka studio qofka marka la wareysanayo saas kala sameeyo intana waxa keensan doona insha Allah 10 afraad dambe ayaa keensan doona qoraal oo la soo minguuriyo oo ma garanaysa inta coda noo yaala moogtahay codkan halka noo yaala qayb kamid ayaa inta soo dhigaya waa suldaankii oo xumaan oo dhintay oo qof ka sheekeynaya amal weey marka inta keensanaysa marka saas waa la soo heystaa insha Allah taala 10 afraad ayaa ku gabagaban doona projectiga aan sameynayno dhammaan waxa aragnay sheebiska iyo kiifreenada waxa adeegsanayna kana ku baran insha Allah
marka insha Allah casharka hadii uu casharkan ku cajab galiyay insha Allah taala casharkan like sar subscribe samee comment nagu soo weydii qaybta description ka iyo sidoo kale WhatsApp ka aad baa mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.